السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد maanta hadduu ilaahay waxaan ka hadli doonaa mowduuc aada muhiim u ah oo ah Soomaaliya anagoo ka eegayna dhanka iqtisaadka aragti oo maaragtaa iqtisaadi anagoo ku eegayna Soomaaliya marka laga hadlayo waxaa diiradda la saaraa dhanka siyaasadda badanaa dhanka dhaqaalaha lagama hadlo marka waxaan doonaynaa inaan dhanka dhaqaalaha in yar maaragtay overview ah dadka aan ka siino nadwadeeni dhowr qayb ayaa u qaybin doonaa hordhac iyo nubda aan kaga hadli doono taariikhda ee soo martay maaragtay dhaqaalaha Soomaaliya waxaan kaloo ka hadli doonaa dhaqaalaha qaab oo macro iyo qaab oo micro labadaba oo ka hadli doonaa saad juzi ahaan iyo kulli ahaan iyo waxaan kaloo ka hadli doonaa cilaaqaad الاقتصادية الخارجية Soomaaliya xiriirada oo maaragtay dhaqaale dibadda ay la leedahay nataa'ijta tawsiyaadna waan sameyn doonaa insha Allah marka maadaama waxaan filayaa badankiina background oo iqtisaadiya leh marka waxaan filayaa dadka badankooda inaysan background lahayn laakiin waxaan isku dayaynaa inaan fududeyno maaragtaa tarxiga qaabka u soo tarxinayno inaan fududeyno si loo wada fahmo sababtu waxay tahay iqtisaadku waa badana arqaam iyo waxyaabahaas ayuu maaragtaa ictimaadaan marka haddaan bilaabano Soomaaliya horta wuxuu maaragtaa hadda ay maraysaa xaalad oo maaragta taxawul ah keliya maaha dhanka dhaqaale dhinacyada kala duwan siyaasadda amniga dhinac walba waxaa ka socda taxasun recovery ayaa socda marka dhanka dhaqaalaha asna saas oo kale waxaa jira recovery ama dib u soo kabasho maxaa yeelay saa ogtihiin burburkii dowladdii dhexe markay burburtay ka bacdi muasasaadka dhammaantood way burbureen marka dhaqaalahaasna waxaa ku socda dib u kabasho marka su-aala meesha imaanaysa oo ah ma dhaqaalihii Soomaaliya waddadii saxda ayuu ku socdaa ma dib buu u soo kabanaya ma mustaqbal fiican uu leeyahay marka su-aashaan ayaa waxaan ka dhigaynaa jawaabteeda fardiyadan ku dhisayno maaragtay tarxigeena waxaan kaga jawaabaynaa haa ayadoo taxadiyaad badan ay jiraan meesha haddana waxaa jira recovery fiican ama soo kabasho fiican iqtisaadkana wuxuu ku socdaa اتجاهي فينا هدي ما عرفته وحاجة محددات خارجية وقوة داخلية وحياة ما عرفته تحديات أو Soomaali gudaheeda ka jira ama dibadda kuwaas dhamaantood hadii ay u adeegaan dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku soo laabanayaa wadadii saxda ahayd saa ogtihiin ma aragtaa taxadiyaadka dibadda waxaa ka mid ah dhaqaalihii adduunka dhan kobciisa ayaa hoos u dhacay نمو العالمي waxay dhahaan hoos u dhacay marka waxyaabahaas dhamaantood saameyn ay ku leeyihiin dhaqaalaha Soomaaliya marka gudahana waa saa ogtihiin dhaqaalihii wuu burburay qitaacaadka kala duwan dhamaantood qaasatan qidaac sectorka oo maaragtaa investment iyo sectorka oo maaragtaa saving ama maaragtaa idkhaarka waxyaabahaas dhan ma shaqeynayaan marka waxaan soo bandhigi doonaa qaababka hadda iqtisaadka dib ugu soo laabanay marka fardiyadeen waxaan dhahnay waxaan ku dhisaynaa sax waaye dhaqaalaha wuxuu ku socdaa dhanka saxan marka hadalka soo socda dhamaantiis wuxuu cadeen u yahay ma fardiyadan aan sheegnay sax miya ama waa qalad aan ka bilaawno nubda taariikhiya ama taariikh ahaan dib aan ugu laabano dhaqaalaha Soomaaliya Soomaalida saa ogtihiin waxay degtaa bariga Afrika dadka degana waa dad qadiim ah dadka qaarkood oo ka hadla taariikhda anthropology waxay sheegaan bani aadamka asalkiisa inuu ka soo jeedo bariga Afrika marka Soomaalida hadda waxaa lahaa 9,000 sano oo qabla miilaadiga ay meesha ku noolay waa ogtihiin waxyaabaha asaarta la helay inay tilmaamayaan arintaas marka waxaan dhihi karnaa Soomaalida waxay
la soo noolayd taariikhdii hore ee bini aadmiga oo waxay soo noolayd waqtiga asr alxajri waxay dhahaan sadarada waxay soo samaysay anshitadii iqtisaadiga waqtigaas la sameynayay waqtigaas waxay ahayd dhagax ayaa qof walba uu jiranayay marka nashaat aliqtisaadi waqtigaas jiray wuxuu ahaa keliya asayd ayuu ahaa ninka wuu soo ugaaranaya dumarka ayagana wixii hoola guriyay samayn jireen marka dhagaxuu qoranaya dhagaxii ayuu kusoo dilaya saydka waxyaabo kale ma jirin bir iyo toore iyo waxyaabo ma jirin marka qaabkaas ayuu ku keenaya saydkii qaabkaas ayaa loogu diyaarinaya marka way soo sameeyeen Soomaalidii arintaas way soo sameeyeen saasoo kale Soomaalida waxay soo martay casr alxajri casuurtii kasii dambeysay ziraaca iyo racyigana caanay ku tahay Soomaali hadaan dhahno waa dad beeraley ah waxay kaloo tahay dad oo ma aragta xoololey ah marka dhulka oo ma aragta beeraha ku fiican oo shabeelooyinka iyo jubooyinka meelahaas aad ay u beertaan saasoo kale waxaa lagu ogyahay geeley inay tahay saasoo kale sinaacada way soo sameysay Soomaali dhanka sinaacada laakiin in yar waxaa arkaysa Soomaalidii hore inay liidi jireen sinaacada qaasatan dadka la dhaho ma aragta Tumaal iyo waxyaabahaas la dadka sinaacada sameyn jiray laakiin waxaa ogaatiin Yurubtan iyo thawra sinaaciya intaysan dhicin ka hor sinaacadu saas ay ahayd qof walba wuxuu ku sameyn jiray gacan uu ku sameyn jiray ma jirin aalaadkan waaweyn marka sinaacadaasna way soo sameeyeen saasoo kale tijaarada Soomaalida way soo sameeyeen waxaan ka hadlaynaa marxala ma qabla al-istiqlaal waxaan u qaybinaynaa maraaxiisha iqtisaadka soo maray ilaa 4 marxalo bas saa u fahantiin waay مرحلة ما قبل الاستقلال هي مرحلة ما بعد الاستقلال هي مرحلة خلال الحروب الأهلية هي بعد الحروب الأهلية أفرتاس مرحلة ما قبل الاستقلال كان حان كسودا من تاريخ دي هوري Soomaalida ay ku noolayd inay soo sameysay ma aragta ziraaca inay lahayd ma aragta sinaaca tijaarada waxay dib u laabanaysaa ma aragta cusurtii hore dadkii ma aragta faraacinada xitaa waxay la sameysay cilaaqaad tijaariya la sameysay oo boqoradii oo fircooniga ahayd waxay u soo dirtay ma aragta dad oo ganacsi ah ay waxay u soo dirtay dhulkii bunt la hijiray soo dirtay si ay ula sameyso ganacsi ay ula sameyso marka tijaaradana way koon sababta waxay tahay Soomaaliya waxay ku dhalaa dhul istiraatiiji ah waxay ku taalaa waxaan dhihi karnaa dhulka ay ku taalo وتجارة عالم كبقولك بقنطل ماشى سيمرتان مركز صدر هذا مهم وتجارة إني جرتو ممالك في هراء وصومرت Soomaaliya dhamaantood waxay sameyn jireen tijaaro qaasatan bakuwa ka jiray xayawaha ka jiray tijaaro ay waxay la lahaayeen carabtii hore iyo dadkii Cumaaniyiinta iyo kuwii kale xitaa waa ogtihiin gumaysiga wuxuu meesha u imaaday inuu sameeyo ganacsi ayuu Soomaali soo galay marka istiqlaalka ka hor Soomaaliya silcada ugu weyn ay lahayd waxay ahayd mooska aad ma aragta oo qiimeyn jiray marka laga soo tago ma aragta nawaashida iyo xoolaha mooska aad ugu caan baxday Soomaaliya saasoo kale beeraha iyo xoolaha iyo tijaarada iyo qofka gumaysiga ayaa marka wuxuu soo galiyay waxa la dhaho qitaac al-maali finance sector soo galay bunuug iyo waxyaabo ayuu aasaasay sababtana waxa way dhaqaalaha ma soconayo ilaa uu meesha ka jiro qitaac maali ka jiro meesha waxaan uga gudbaynaa marxaladda aan kaga hadlaynay xurriyadii ka hor Soomaali inteeda xurun ka hor dhaqaalaha soo ahaa hadda waxa u galaynaa marka marxaladda xurriyadda kadib dhaqaalaha soo noqday saa isla wada ognahay Soomaali xurriyadeedii 1960 heshay markii ay helaysay waxay ka heshay dawladaha galbeedka marka isla markiiba waxay qaadatay nidaam oo la dhaho nidaam ra'samaali marka dhaqaalaha wuxuu leeyahay systems ayuu leeyahay waxa uu weyn 3 system nidaam ra'samaali la dhaho nidaam ishtiraaki la dhaho iyo nidaam islaami la dhaho in yar waan faahfaahin doonaa laakiin
Soomaaliya waxay qaadatay nidaam ra'smaali ah nidaam ra'smaali waxa waaye dhaqaalaha dhamaantiis qof walba xor uu yahay wuxuu ku dhisan yahay xor qof walba dhaqaaluhu sameyn karaa kida dawladda ma soo dhaxgalayso intaas uu ku dhisan yahay wuxuu imaanaya maaragtay fikrad ka sii weyn oo fikra liberaaliya Allah oo maaragtaa siyaasi iqtisaadi wax walba leh marka wuxuu ku dhisan yahay asal ahaanba xorriyadaas ku dhisan yahay marka Soomaaliya waxay qaadatay nidaamkaas oo ra'smaaliga ay qaadatay nidaam ra'smaali markay qaadatay marka ilaa 60kii ilaa 69kii waxaa dhacay mushkilado oo fasaad ah ama corruption ayaa meesha ka dhacay oo dadkii ugu sareeyay dawladda inay wax walba la wareegaan ay bilaabeen marka mushkilo badan ah dhacday waqtiyadii hore way iska fiicneed laakiin mar walba markii ka sii dambeysay waxaa dhacay maxsuubiye fasaad taasna waxay maaragtay sabab u noqotay in maaragtaa thawradii 22 Oktoobar 1969 ay dhacdo siyaad bara ay la wareegaan dawladii ayagoo ku eedeynayo fasaadka iyo isdoomarinta ay wadaan maaragtaa iyo dalkii ay gadeen kuwa maaragtaa meesha haystay saasay ku eedeeyeen marka dhaqaalihii wuxuu isku bedelay ra'smaali soo ahaa ishtiraaki isku bedelay marka ishtiraakiyadii isku bedelay waxay ishtiraakiya cilmiya mid la dhaho waa maaragtaa hanti wadaag ku dhisan cilmi ku dhisan ishtiraakiya caadi ma hanti wadaag ku dhisan cilmi marka waxaan soo dhahnay ra'smaaliyadu waxay xorriyad siinaysaa ashkhaaста dhamaantood inay sameeyaan anshata iqtisaadiya dawladana ma soo dhaxgalayso dawladda gacan kuma leh maaragtaa arrimaha dhaqaalaha laakiin ishtiraakiyadu waxay aaminsan tahay guud ahaan dhaqaalaha in dawladda gacanta loo geliyo marka ishtiraakiya cilmiya marka leenahay qofka sameeyay oo markas ah wuxuu leeyahay wax loo maaragtaa tatawur maadi taariikh wax loo marka wuxuu leeyahay awal mujtamacaadka waxay soo maraan mujtamacaad caadi ziraaciya thumma iqtaaciya noqdaan thumma waxay noqdaan maaragtaa ra'smaali thumma maaragtaa waxay noqdaan ishtiraaki thumma waxay noqdaan shuyuuci ay noqdaan shuyuucda marka meesha ugu dambeysay bini aadanka uu gaarayo uu leeyahay oo waxa waaye wax walba shuyuuc waay dadku way isla leeyihiin wax oo la kala leeyahay male taa dadka qaarkood inay dhahaan maaragtaa naagta xitaa waa isla leeyahay marka fikrad saas ay aaminsan yihiin wax walba marka shacabka uu ka dhaxeeyo shuyuuc marka dawladdii siyaad bare maxay samaysay ishtiraakiya cilmiya ay waxay isku daysay inay samayso ishtiraakiya cilmiya ishtirakiyada caadi way ka duwan tahay oo kaliya inaa la wareegto qeybo ka mid ah dhaqaalaha asi wuxuu sameeyay maaragtay dhaqaalihii dhanba inuu la wareego oo maaragtaa waqtigaas Soomaaliya diyaar uma ahayn arintaasna 1970kii ay dhacday iqtisaadkii waxaa lagu sameeyay nationalization wax la ta'miim ama wax walba dawladii ayaa la siiyay muassasaadkii dhaqaalaha muassasaadkii maaliyadda wax walba dawladii ayaa maaragtay gacanta loo galiyay markii arintaas dhacday 70meeyadii marka Soomaaliya waxay maaragtaa dhaxgashay waqti adag awaare waxyaabaas ka dhacay thumma waxaa dhacay dagaalkii oo 1977 ayaa dhacay 77 dagaalka markuu dhacay marka waxaa isbedelay xiriirkii ee Soomaaliya la lahayd dibadda maaragtaa awal waxay xiriir la lahayd dadkii oo maaragtay ishtiraakiyada ama shuyuuciyada hogaaminay midowga Soviet USSR midowga Soviet ay xiriir asaad dacmin jiray wax walba lacag siin jiray wax walba ay ka heli jirtay marka midowga Soviet asna wuxuu soo taakuleeyay Ethiopia oo maaragtaa Soomaaliya la dagaalamayay 77 marka xiriirkii meeshaas uu ku baaba'ay haddana waxaa maaragtaa isku dayay siyaad bare inuu la dhiso xiriir maaragtay galbeedkii uu la dhiso marka xiriirkii dibadeed ayaa isbedelay marka 80meeyadii Soomaaliya marka waxay dib ugu soo laabatay nidaamkii la dhahay maaragtaa nidaamkii oo ra'smaaliga lahay ku dhisnaa xorriyadda iyo dadka qof walba inuu maaragtay nashaad iqtisaadi uu sameyn karo marka 83dii waxaa dhacday icaadada haykalada iqtisaad wax la dhaqaalihii ayaa maaragtaa waxaa la sameeynayaa haykalada iqtisaad waxaa laga wadaa waxyaabihii ay dawladii ay gadatay ta'miimkii ayaa waxaa loo bedelay khaskhasa wax la privatization wax walba waxaa la siinaa maaragtay dadkii ayaa laga gadayaa
waxaa kaloo la samaynayaa maaragtaa arrimo kale ay ka mid yihiin IMF-ta iyo waxay soo dejinayaan barnaamij waxay ku dhahayaan dacmiga inaad ka joojiso maaragta silca al-asaasiya oo waxaa waaye dacmiga silca al-asaasiya inaad ka joojiso waxaa laga wadaa dowladaha qaar waxay dacmiyaan silacda asaasiga sida ceeshka camal suudaada khubuska waa la dacmiyaa soo ma waxaa la dacmiyaa betroolka la dacmiyaa waxyaabahaasna waa la dacmiyaa marka IMF-ta shuruudaheeda waxaa waaye haddaa ka rabto inay ku siiso maaragtaa lacag ay ku deemiso shuruudahaas waxay ku dhahaysaa dacmiga ka jooji marka bulshadana badankood waa iska fuqaro saameyn ay ku yeelanaysa 2013 waxaa soo Suudaan dacmal waquudka marka la joojiyay maxaa dhacay mudaharaadyo waxyaabaha dhacay Soomaa marka khasqasadii iyo icaadad al-haykala waxay dhacday 1983 ay wadanka ka dhacday marka saan u soo gaabino leena waxyaabahan ka hadli doono way ka sii tirabadan yihiin hadda taariikhdii baa ku jirna marka mushkilo ayaa waxaa dhacday waqtigaas oo ku saabsan dhaqaalihii Soomaaliya inuu aad u baaba'o marka dadka ishtiraakiyada midowga Soviet raacsanaa waxay ku tilmaamayaan arintaas sabab inay u ahaayeen ra'smaaliyadii Soomaaliya isku days inay qaadato waxay ku leeyihiin qof oo kitaab la dhaho cawlamat al-faqr qoray tashfiski wax saas Allah marka wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa sababta Soomaaliya maaragtay mushkiladaas u dhacday waxay ahayd ra'smaaliyada wuxuu ku leeyahay 700 Soomaaliya ma soo arag maaragta dhanka oo maaragta ridaada ama maaragta raashinka kuma yaraan marka laga reebo majaacadii markii dhacday isku filnayd dhanka raashin ahaan beerihii diirada ayuu saaray siyaad bari isku filnayd marka sababta waxyaabahan keenay wuxuu ku leeyahay ra'smaaliyada sababtuna waxay tahay macuunay ku siinayaan macuuno waxay dhahaan ama kaalmo ay ku siinayaan oo waxyaabihii qiimadii iyo galeydii wadankooda ka soo dhacay ay ku keenayaan marka arintaas waxay sababaysaa wax loo iqraaq suuqii maaragtay dadkii beeraleyda markay soo jartaan suuqii waxaa ka buuxa maaragtay silac marka uma gadmaayo ama raqiis ay ku gadayaan marka beerihii way ka caajisayaan tan labaad wuxuu ku leeyahay markii arintaas ay dhacday saadaraadkii ayaa hoos u dhacay saadaraadkii waxaa lahaa dawladdan waxay dhoofiso oo dibadda u dhoofiso dawladda waxay dhoofiso taas waxay ka soo gashaa maaragtay lacagta adag ama foreign currency-ga ayada ay ka soo gashay markii arintaas ay dhacday saadaraadkii ay yaraaday ka bacdi tadakhuma dhacay oo lacagtii maaragtay raqiistay waxay ku gadaysa mala marka wuxuuna sabab ugu dhigayaa icaadad al-haykala waqtigaas la sameeyay ayuu sabab uga dhigayaa ugu dambeyn 89 ayaa waxa uu dambeeyay taqriirka IMF ay ka soo saarto Soomaaliya waxayna ku tilmaantay dhaqaalaha Soomaaliya waqtigaas inuu hoos u dhacay 1.5% ama 1.5 ayuu hoos u dhacay taqriirka ugu dambeeyay IMF ay soo saartay ka bacdi 91 dawladii dhacday wax walba meeshaas ay ka baxeen oo dawladaha caalamka iyo muassasaadka duwaliga اعتراafkii ay kala noqdeen Soomaaliya leena dawladba ma jirtay xukuumad ma jirtay marka arintaas markay meeshaas ay marayso waxaan fiican inaan tilmaano waliga Soomaaliya waxay ku nooleed miisaaniyadeeda waa la dacmin jiray laga soo bilaabo xurriyadda intay qaadatay ilaa hadda miisaaniyadeed waa la dacmin jiray oo wadamo dibadda ayaa dacminaya miisaaniyadda waxa waaye dawladda waxyaabaha maaragtay ay ku shaqeyso miisaaniyadda marka leena istiqlaalkii ka hor dawlad markazi ma lahayn Soomaaliya dhamaanta dawlad xadiida waxay bilowday istiqlaalkii ka bacdi halkan waxaan kaga gudbaynaa marxaladii istiqlaalka xurriyadda marka la qaatay dhaqaalaha soo ahaa wuxuu ku bilowday ra'smaali ishtiraaki isku bedelay haddana ra'smaali ku soo laabtay waxaa bilowday marka dagaaladii maaragtay ahliga ahaa Soomaaliya ayaa isdirirtay muassasaadkii dhamaantood way baaba'een muassasaadkii dhaqaalaha gaar ahaan bangiga markazi waxyaabihii dhan way dhaceen iyo mashruucaadkii waxyaabihii gacanta kula jirtay dawladda dhaqaalihii eber u noqday marka dawladaha caalamka waxay isku dayeen in icaadad al-amal ay u sameeyaan 92 laga soo bilaabo 95 way ku fashilmeen haddana ka bacdi dhamaadkii 90meedii waxaa haddana dib u bilowday in maaragtay dhaqaalihii
dib maaragta u soo fiicnaado sababo la xiriira qeybo ka mid ah Soomaaliya waqooyi bari camal dawladda ka dhisantay amni ayaa marka koonfurta waxaa ku soo raday shaqaaqada marka meelahaas waxaa ka bilowday dhaqaalihii in dib u soo shirkadaha la sameeyay marka shirkado itisaalaadka camal sida maaragtay Hormuud iyo shirkadahaas waqtigaas la sameeyay meelaha qaar waxaa laga sameeyay bunuuga laga sameeyay istismaar oo waxaa bilowday dhanka tacliimta ah marka Soomaaliya waqtigaas badanaa waxay sameyn jirtay dhanka tijaarada ay maaragta aad uga shaqeynaysa marka dhamaadkii sagaashameeyadii waxaa bilowday dhaqaalihii inuu dib u soo noqdo marka waxyaabaha ugu muhiimsan waqtigaas la aasaasay waxay ahaayeen xawaaladaha lianna Soomaalidii dibadda aaday ayaa waxay soo diraysaa lacago dadka marka xawaaladihii ayaa meesha ka dhashay marka 2000 markay bilaabatay arintii way sii socotay adana maaragta Soomaaliya markaas mushkilada haysatay waxay ahayd lacaga cusub aan la soo saarayn wax walba everykeed way ka baaba'sanay marka lacaga banaan ka soo galayna ma lahayn marka laga reebo xawaaladaha ay dadka ay soo diraan marka dawladihii ku meel gaarka marka la aasaasay waxaa bilowday lacag kale inay imaadaan dawladaha lacag lagu taag kureynayo iyo fangareentaas iyo saan soo gaabino 2009kii waxaa dib loo aasaasay bangigii dhexe ee Soomaaliya ayaa dib loo aasaasay 2009kii bangiga dhexe iyo waxyaabuhu sameeyana in yar waa sharxi doonaa 2011 waxaa dhacday abaaro ayaa dhacay abaarihii 2011 badankiina waan ka warhaynaa Soomaa marka asbaabo badan loo sheega asbaabaha ugu weyn waxaa waaye amni الغذائي iyo meesha ka baxay amni الغذائيna sababta maxay tahay waxaan soo sheegnay dadka qaarkood inay ku tilmaamaan galbeedka inuu ka dambeeyo amni الغذائي inuu meesha ka baxo iqraaqa iyo waxyaabaha uu sameeynayo marka waxaan u sii galaynaa xuruub al-ahliya marxaladii ka dambeysay dawladda caalamka laga aqoonsan yahay 2012 ay bilaabatay ka bacdi maxaa ka bedelay dhaqaalihii Soomaaliya waxyaabaha ugu waaweyn ee dawladda ay sameysay dhanka dhaqaalaha waxaa ka mid ah New Deal waxaa waa heshiis ay wada galeen dawladda Soomaaliya iyo maaragtay caalamka oo wada galay dawladda Soomaaliya waxay ka soo baxaysaa waxaa lahayd dagaal ahli ka soo baxaysaa waxaa loo baahan yahay in la taakuleeyo marka caalamka wuxuu dhahay intaan anaga wax idin soo diyaarin lahayn lacag idin siin lahayn idinka waxaa soo samaysatiin waxaa taxdiid waxaa ku samaysiin priorities ka leedihiin ama awlawiyaad ka leedihiin waxyaabaha doonaysiin in la idinka dacmiyo ka bacdi waan shiraynaa waa idin fangareynayna marka dawladda mashruuc ay soo diyaarisay mashruuc ilaa 5 qayb ka kooban ay soo diyaarisay waxaa ka mid ah marka economic recovery dib u soo kabashada dhaqaale qayb ku saabsan dhanka siyaasadda dhanka prioritiska dawladda waxaa ka mid ah good governance in xawkama la helo maamul wanaag ay samayso dawladda waxaa ka mid ah economic recovery dhaqaalaha in dib loo soo celiyo marka arrimahan aan sheegin hoostooda waxaa ku jira plans ama qorshooyin ku jira qorshooyinkii lagu gaari lahaa mid walbana waxay u baahan tahay fangareyn ay u baahan tahay peace building and reconciliation ayaa ka mid ah in dib loo celiyo maaragta nabadii in dib loo dhiso iyo wada heshiin in la sameeyo dadka in la heshiisiyo unity and integrity ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah service delivery in maaragta khidmaadka dawladda way baabeen sagaashameeyadii in dib loo soo celiyo tacliim ha ahaato sixa ha ahaato khidmaadkii ay samayn jirtay dawladda dhammaanteed and international relations marka xiriirka caalamiga dib in loo soo celiyo marka mid walba qodobadan ka mid ah waxaa la sameeyay in maaragta fangareyn marka guud ahaan lacagta loogu deeqay Brussels September 2013 waxay ahayd lacag gaaraysa 1.8 billion euros ama maaragta lacag oo dollar ahaan $2.8 billion marka lacagta billion-ka waa garanayna Soomaa lacagta billion-ka
وهل يسجل إبر إسكو حاجة العك فرق بدن واحد مليون مركز سيدها بكون مليون مركز حاله وده لو ربع سديت مليون أو حوالي العك تمريكان والعك أد أفر بدن marka arintu markay meesha marayso new deal ka ma doonaa inaan ku fogaado dib ma aragtay inaan ugu soo laabtaan rabaa isla waqtigaas golaha wasiirada waxay sameeyeen waxay ansixiyeen qorshihii 2013 ilaa 2015 oo ku saabsanaa dib u soo kabashada dhaqaalaha marka qorshahaas hadafkiisa wuxuu ahaa in dib loo soo celiyo infrastructureska ama ma aragtaa kaabiyaasha dhaqaale ee ka qayb qaadan kara sectorska ama qitaacaadka wax soo saarka la dawladda hadafka yar saasoo hadafka gaaban hadafka dheerna wuxuu ahaa hadafka fogna wuxuu ahaa in la xaqiijiyo tanmiya mustadaama waxay dhahaan marka tanmiya mustadaama iyo in la baabi'iyo faqriga labadaas hadaf laga lahaa marka waxaa soo hoosgalay arrimo dhowr ah ayaa soo hoosgalay marka lacaga loo qorsheeyay intaas ayay sameeyeen waxyaabaha aan ka tilmaami karno dawladdan intay jirto waxaa waaye dadkii oo dibadda ku maqnaa Soomaalida dibadda ku maqnayd badankood way soo laabteen lianna waxaa soo galay amal waxaa dawladda Soomaaliya dhisantay wadankii uu isbedelay badankeena waxaa u maleynaa qaraabo inay ku leeyihiin dibadaha qaraabadooda waxay u imaadeen mar Soomaaliya soo booqdeen marka arintaasna waxay ka qayb qaadatay dhaqaalihii inuu dib u soo kobco lianna dhaqaalaha waa wax isku xiran hadduu sector ka mid ah dhaqaalaha intixaash ku dhaco sida petroolka dawladdan haysta petrool ay haystaan qeybaha kalena waxay ka qayb qaadanaysaa inuu intixaash ku dhaco marka dadkii markay soo laabteen lacagihii waddanka soo geliyeen diyaaradihii tayraankii dib u soo laabtay waxaa la aasaasay bunuug fara badan ilaa ATM laga aasaaso bangi oo Soomaaliya kamid ah wuxuu la galay Mastercard waxay dhahaan ayuu heshiis la galay oo caalamka meesha doonto ma aragtaa lacag elektarooni ahaan u xawili kartaa waana ka heli kartaa Suudaan kama jirto waan kaga fiicanahay arintaas marka waxyaabo badan ayaa iska bedelay arintaas qaybtaas iska bedelay marka waxaan dhihi karnaa fatradii u dhaxaysay 2002 ilaa waqtigan 2016 lacag aad u fara badan ayaa Soomaaliya soo gashay taas oo ka qayb qaadatay Soomaaliya inay dib u dhisanto qaasatan Muqdisho aad ay u dhisantay waxa la yaabaa dhismaha dhaqaalaha badanaa inuu Muqdisho concentrated uu ku noqday qaybihii kale wax yar uu ka gaaray marka qof kamid ah khubarada ama dadkan oo baaxisiinta kamid ah wuxuu sheegayaa in lacagta soo gashay Soomaaliya 2013 ilaa 2015 ama 16 ay gaarayso $4.5 bilyan inay gaarayso waa lacag aad u fara badan ku dhow GDP-ga Soomaaliya GDP-ga Soomaaliya waxaa la soo saarka wadanka meequu soo saara waxyaabuhu soo saara sanadkaas ayaa GDP la dhahaa GDP-geeda waxaa lagu qiyaasaa 6 bilyan inuu yahay lacagta soo gashayna 4 bilyan lagu sheegay marka intaas dhan waxay ka qayb qaadatay dhaqaalihii inuu dib u soo kobco ay ka qayb qaadatay halkan waxaa uga gudbaynaa marxaladaas taariikhiga waxaan dhahnay Soomaaliya waxaan ka hadalnay waqtigii ka horeeyay istiqlaalka ama xurriyadda waqtigii dawladihii soo maray Soomaaliya midii military kuwa madaniga ahaa dhaqaaluhu soo ahaa waan ka soo sheekeynay xuruubul ahli dhaqaaluhu soo noqday uu ka soo sheekeynay dawladdan cusub rasmiga oo dibadda laga aqoonsan yahay wadamada caalamka aqoonsan markay imaaday dhaqaalaha soo ahaana waan aragtaa waan fahanay intaas mafhuum way Soomaa taas waa isla garanay marka hadda waxaan u sii gudagalaynaa waxaan dhahnay barnaamijka waa fududaynayna waxaa laga yaabaa mustalaxaad qaar ilaa hadda dadka qaar inaysan fahmin laakiin ilaa hadda waxaan isku dayaynaa in wax walba fudud ay noqdaan dhammaanteedna waxaan dad jaamiciina waan fahmayna Soomaa marka waxaan isku dayaynaa qaybta soo xigto inaan si ku dhisno basiid ah si fudud dhaqaalaha marka laga hadlayo waxaa loo qeybiyaa labo dhaqaalaha guud ahaanba wuxuu ka hadlayaa wax soo saarka iyo marka wax soo saarto isticmaalkooda istihlaag waa consumption
wixii la soo saaray ayaa la isticmaalaya iyo wuxuu ka hadlaya waxyaabihii ay soo saartay qaabkay u qaybinaysa saddexdaas shay uu ka hadlaya dhaqaalaha dhan lagu sheegay waa saddexdaas shay wuxuu ka hadlaya anshata iqtisaadiya dhaqdhaqaaqa dhaqaale soo saarkiisa intaajka tawsiiciisa qaybinta iyo istihlaagiisa isticmaalkiisa saddexdaas un buu ka hadlaya dhaqaalaha marka anshata iqtisaadiya dhaqaalaha nashaadada economic activitieska maxay yihiin dhaqdhaqaaqa dhaqaale muxuu yahay dhaqdhaqaaqa dhaqaale waa saddex ayaan ku soo koobi karnaa waxaa la dhihi karaa dhan ziraaco ah agriculture ah mid oo maaragtay sinaaco ah oo maaragtay waxyaabihii ziraacada laga soo saaray ayaa la bedelay taxwiila dhacay mobeeladan waxyaabahan u jeedna dhammaantood sinaacada ah iyo mid khadami ah service ah waxyaabihii ka soo haray ha ahaato maaliyad ha ahaato banuugdan la isticmaalo ha ahaato maaragtay itisaalaadka telefonka ku hadlayso khadamaad waay marka saddexdaas u qaybin karaan dhaqaalaha shitada saddexdaas qitaac mid ziraaciya mid oo maxaan dhahnay sinaaciya iyo mid oo service ah marka Soomaaliya dhaqaalaha ziraaciga ugu badan boqolkiiba 70 waa ziraacada dadka ka shaqeeyna ziraacada marka lagu leeyahay kaliya abuuritaanka ma aha ziraacada laba iskugu jirta beeraha iyo waxa iskugu jirta xoolaha labadaas iskugu jirta marka dhaqaalaha ugu weyn Soomaaliya waa ziraacada waa boqolkiiba 70 shaqaalaha ugu badan meeshaas ka shaqeeya kaliya Soomaaliya ma aha wadamada oo maaragtay soo koraya dhamaantood saas waay marka waxa ku soo xiga service-ka statistics ugu dambeeyay 2013 ee malayna ziraacada boqolkiiba 60 ay ahayd service-ka 32 ayuu ahaa boqolkiiba 32 sideedna wuxuu ahaa maaragtaa sinaacada marka sinaacada Soomaaliya aad ay u yartahay marka Soomaaliya hadda waxaan ka eegi doonaa dhaqaale markuu saas yahay laba qaab uu hadla dhaqaalaha qaab oo guud iyo qaab oo gaar mid oo macro la dhaho macro waxa way dawladda dhan waxyaabaha quseeya sicir bararka halkuu marayaa wax soo saarka dawladdan GDP-geeda meeqa waaye bataalada say tahay unemployment-ga meeqa shaqo haysta meeqa marka dawladda dhan wax ku saabsan ayuu ka hadlaya kaas waxaa la macro economics oo waxa waaye iqtisaad kulli iqtisaad juz'i jira mid oo ku saabsan wuxdaat iqtisaadiya shirkadaha iyo qaabka u shaqeynayaan takaaliifta ka baxaysa maxaa shirkadan qaabka ribxigeeda kor u qaadaysa waxyaabahaas kaas wuxuu ka hadlayaa marka juz'i waaye marka wuxuu kaloo ka hadlayaa cardiga iyo talabka ayuu ka hadlayaa waxyaabaha la kala gato marka waxaan ogaanaynaa Soomaaliya markii dawladda ay dhacday dhammaan dhaqaalihii Soomaaliya waxaa gacanta ku hayay private sector-ka wax la dhaho taas arrin muhiim ah waay لأن دولتي بدنkeed ay maamuleysay dhaqaalaha way baabaaday marka Soomaaliya dhan waxa gacanta ku hayay private sector-ka ama qitaaca khaas ashqaasta ganacsatada iyo maaragtay dadka khaaska oo leh mashruucaadka waxaan doonayaa inaan ka hadlo in yar qitaacaadka kala duwan ee Soomaaliya ay leedahay maadaama aan ka hadlayno Soomaaliya aragti dhaqaale ahaan uga hadlayno waxaa la sheegaa Soomaaliya inay qani ku tahay mawaaridda dabiiciga Soomaaliya marka waxaan doonayaa inaan wax yar statistic ah idin siiyo oo ku saabsan qeybaha kala duwan ee dhaqaalaha Soomaaliya ziraacada aan u horeysiino ziraacada Soomaaliya dhulka oo maaragta beeraha lagu beeri karo saalix liziraaca wuxuu gaarayaa 10 milyan oo hektar ayuu gaarayaa waa dhul aad u weyn haddii dhulkaas dhan la abuuro maaragta Soomaaliya in la qoodiyo ayaa dibadda loo soo dhoofin karaa lacag zaydana ka soo galaysa marka waxa laga faa'iideystay sida munadamada FAO ay sheegayso dhulkaas waxa laga faa'iideystay kaliya ma gaaray leedahay boqolkiiba hal ma gaaray ay leedahay marka dhul yar ayaa laga faa'iideystay kaliyeena ma aha arintaas Afrika dhan asaasa caalamka marka saa u eegto Afrika waxay haysataa boqolkiiba 60 dhulka maaragta saalix liziraaca Afrika ku yaala Suudaan ay ugu weynta iyo wadamada Congo iyo kama faa'iideysan boqolkiiba 6 kama faa'iideysan marka Soomaaliyana waxay 10 milyan oo hektar 10 milyan oo hektar waxay boqol wax gaaraya kama faa'iideysan marka 10 milyan oo hektar waqtigii siyaad baray wax fiican laga faa'iideystay marka dhanka oo silca alghidaiya in yar isku filnaansho ayaa iska jirtay
waxaan ka hadlay dhanka ziraacada ilaa hadda ku guda jirna kobacii ka dhacay maaragtay Soomaaliya 2013 iyo 2012 2014 waxaa lagu tilmaami karaa dhaqaalaha waqti ugu fiican Soomaaliya waqtiyadan dhow waxaa kobac fiican ayaa dhacay arintaasna waxaa loo sababeeyaa inay tahay in kor u kac uu ku imaaday dhanka ziraacada beeraha iyo maaragtay mawaashida xoolaha 2011 waxay ahayd sanadkii ugu badnaa ee sinta laga dhoofiyo Soomaaliya lacag aad u fara badan 200 milyan dollar ka badan ayaa ka soo gashay sintaas dhoofinteeda marka waxaan dhihi karnaa GDP-ga Soomaaliya boqolkiiba 40 waa dhanka ziraacada GDP-ga maxaan dhahnay GDP waa fahansanay Soomaa gross domestic product oo ah natiijada maxalli ijmaali wadankan wuxuu soo saaray sanadkan gudihiisa fatro macayana wuxuu soo saaray waxay gaaraysaa 6 bilyan ku dhawaad 5.8 ay ahayd 2015 sida IMF ay sheegtay marka 40% waxa waay ziraacada waay 40% ziraacada waay waxayna matashaa 50% waxyaabo Soomaaliya ay dhoofiso dibadda ay u dhoofiso 50% maxaa waay waxyaabo maaragtaa mawaashida iyo ziraacada ku saabsan waay marka Soomaaliya 2014 waxaa laga dhoofiyay 5 milyan oo neef wax yar ma Soomaaliya waxay haysataa maaragtaa geela ugu badan caalamka Soomaaliya ku nool yahay 5 milyan oo neef ay dhoofisay 77,000 oo geel ah ayaa ka mid ah neef geel ah marka badankood 98% wadamada khaliijka loo dhoofiyaa suuq cusub hadda waxaa ka furmay Masar iyo kida laakiin 98% waxaa loo dhoofiyaa wadamada khaliijka guud ahaan xoolaha Soomaaliya ku nool waxaa lagu tilmaamay inay gaarayaan 50 milyan inay gaarayaan oo madax marka waa xoolo aad u fara badan oo shacabka marka loo qeybiyo maaragta waxay noqonayaan xoolo ku filan ziraacada waan fahanay Soomaa hore idinku soo sheegay waxyaabo waxa iska jira arqaam ah marka arqaamta naftirkooda waa muhiim laana dhaqaalaha dhamaantiis wuxuu ku dhisan yahay arqaam marka ziraacada saas waay sinaacada Soomaaliya u galeena sinaacada Soomaaliya GDP-geeda ama natiijada maxalliga 10% ay matashaa 10% ay matashaa marka statistics mar 8% mar 10% guud ahaan isku celcelinaa 10% laakiin 2014 waxaan soo dhahnay waxay matashay 8% markii dawladii dhexe ay dhacaysay 53 shirkadood oo waaweyn 53 masnac oo waaweyn ama dhaxdhax ama yaryar ayaa Soomaaliya ka jirtay laakiin markii dawladda ay dhacday masaanicdii iyo sinaacadii dhamaantood way baabaaday laakiin waxaa dib u soo noqday sinaacadii Muqdisho camal waxaa iskaga jiray sinaacooyin yaryar waxay soo saaraan waxyaabo fudfudud sida bacaha waxay soo saaraan oomada casiirada yaryar marka sinaacadkaas fudfudud ayaa dib u soo laabtay laakiin sinaacadka mutawassidka iyo kuwii waaweynaa ilaa hadda Soomaali kuma soo laaban waxaan kaloo ka hadlaynaa sinaacada meeshaas marka ugu gudubno naqliga iyo ittisaalaadka Soomaaliya badankeeda tijaarada aad ay ugu dhisantay Soomaaliya laana waxyaabaha ay isticmaasho dadka ay cunaan ama kida waxaan soo dhahnay dhanka ziraacada in la bahdilay oo galbeedkii ku sameeyay iqraaq oo ku sameeyay galbeedkii iqraaq markuu ku sameeyay dadka badan way ka soo tageen ziraacadii laba shay ayaa dhacday horta muhiim ah inaan fahanno markii iqraaq lagu sameeyay dadkii waxay ka soo carareen baadiyihii waxay soo galeen magaalooyinka marka soo galeen maxaa dhacay wax soo saarkii baadiyihii ayaa hoos u dhacay magaalooyinka maxaa ku batay bataaladii ayaa ku badatay waxaa ku badatay shaqo la'aantii maxaa kaloo dhacay mashaakil oo iqtisaadi ayaa dhacay dhanka kale markaan ka eegno hore Soomaaliya waxay soo saari jirtay maxaasiil alghidaa'iya wax la dhaho maxaasiil alghidaa'iya maxaa laga wadaa waxyaabaha markaa soo saarto aa cuni karta sida galeyda iyo kida hore 70-meeyadii iyo 80-meeyadii markii mushkilada ay dhacday aan soo sheegayna maxaasiil ziraaciya waa laga tagay sababtana maxaa waaye haddaa soo saarto qofkaa gadanaya ma leh waxyaabihii waxay isku bedeleen maxaasiil
النقدية وحلا محاصيل النقدية محل جودا وحاول وحياة زراعة كسو جوه وهذا العك كهليس سسمت عمل أيوة عك فربنا على كذا سمع مركا سسمتي يلوسكي محاصيل النقدية أي وحياة قفل بالعورة مركا ماشي سوسكبي مركا ماشي وحاكا بحي أمن الغذائي وحلا اسكو ما في ما ركتا هنا اسقوس اسكو ما في مركا وحياة عونس بدن كده دي بدها كهليسة مركا سوماليا اكسبورت امبورت marka la fiiriyo cajis weyn ku jira in ka badan 2.6 bilyan oo cajis ah leena waxyaabaha ay cunaan dhamaan waxay kasoo keenan dibadda kasoo degsadaan taasina maxay sababaysaa in cajis weyn oo dhaco Soomaalidana waa mujtamac istihlaaki ah mujtamac istihlaaki waxaan ka wadnaa GDP-giisa 100% istihlaak waay GDP waan ka hadli doonaa waa oo imaan doonaa marka naqliga aad u kobcay qaasatan marka soo degsato ka soo degso miinaa ka soo degso waxa u baahan tahay gawaari ku qaata magaalooyinka gudaha ku yaala xeebaha ama ay magaalooyinka gudaha ku yaala in loo qaado marka naqliga aad u kobcay muqdisho amal marka ka soo degsato iyo xeebaha kale waa gudaha ina soo galiso naqli fiican u dhacay xitaa ilaa Kenya laga galiyo silacda Soomaaliya la keeno Kenya sokorta ugu badan Soomaaliya ka hesha waxay ka helaysaa ma aragtaa Kismaayo marka اتصالاتك markaan dhahno kobac weyn ku dhaxay communication-ka waxa lagu tilmaamay Soomaaliya inay ka mid tahay wadamada caalamka ugu raqiisan dhanka ma aragta xiriirka اتصالka ama qof marka la hadlayso lacagta kaaga baxaysa saasoo kale wadamada Afrika اتصالاتka ugu horumarsan ay ka mid tahay internetka wax walba marka la fiiriyo saasoo kale waxa jira lacagaha la isku xawilo mobilka ama aad ay uga qayb qaadatay Soomaaliya aad ay u fududahay dhanka kale mushkilo ka jirta laakiin way fududaysay ma aragta tacaamulaadka iqtisaadiga ilaa 8 shirkadood oo waaweyn oo waxa ku yaala Soomaaliya dhanka ittisaalaadka ah badankeena aan garanayno ilaa 8 ay gaarayaan intaas waxa waaye naqliga iyo ittisaalaadka waxa uu sii galay dhanka maaliyadda Soomaaliya dhanka maaliyadda qaabkay ku tahay waxa jira Soomaaliya 6 bangi ka jira hadda badankood la aasaasay fatradooyinkii ugu dambeeyay ayaa la aasaasay wixii ka dambeeyay 2012 marka lagu daro bankiga markaziga ama central bankiga waxa kale central bankiga waan ka hadli doonaa ama hadaan wax yar ka tilmaamo waa qofka jihada sameynaysa lacagaha ayada soo saarayso waxay kale oo ma aragtay supervisor ka tahay waxa siyaasad naqdiya mid sameynaysa ma aragtaa siyaasadda ku saabsan dhanka lacagaha ku saabsan ay sameynaysa waxyaabo kale bankiga markazi uu sameynayo waxa waaye siyaasad naqdiya waxa soo ka hadli doona si oo ma aragtaa faahfaahsan waxyaabo kale bankiga markazi uu sameyn tarxiisaad uu soo saaraya qitaaca maaliga waxyaabo bunuugda iyo waxyaabo ka horgalayo tarxiis uu soo saaraya marka ilaa hadda tarxiis wuxuu siiyay Soomaaliya waxa ogtiin qof walba xawaalad inuu iska furtay marka bankiga markazi ilaa hadda tarxiis wuxuu siiyay 9 xawaaladood ayuu tarxiis siiyay 13 kalena processkii ay ku jiraan way gudbisadeen marka arimahaasna waxa ku daqday IMF-ta leena Soomaaliya waxay dalbatay inay lacag hesho waxa la deyn badan la idin leeyahay waxa la idin masin karo islaax iqtisaadi sameeya islaax iqtisaadi wuxuu kamid ah marka tarxiisaadkaasna inay sameyso siyaasad naqdiyana dib ay u soo celiso wasiifa faahin doona arintaas marka waxaan dhaanay 6 bangi jirta 9 xawaaladood oo la tarxiisay iyo 13 kale oo hadda processkii ku jira ayaa jira iyo waxa kale oo jira qeybo xawaalado fara badan oo ma aragtaa غير rasmi ah marka xawaaladahan aad ay uga qayb qaateen dhaqaalaha Soomaaliya burburka ilaa hadda Soomaalida badankood waxay ku nool yihiin lacagaha dibadda loo soo diro marka lacagta waxay gaaraysaa xawaaladahan laga soo diro 1.6 milyan ama 1.6 billion dollar ay gaaraysaa lacag aad u fara badan oo ma aragtay ka qayb qaadanaysa in la daboolo cajziga oo ku jira ma aragtay saadiraadka macnaha aad ay u yar yihiin saadiraadka waxa soo degsatana way badan yihiin marka meesha cajzi weyn ka soo baxay qayb kamid ah waxa daboolay lacagaha dibadda looga soo diro boqolkiiba 9 lacagta Soomaaliya koonfurtan ka hadlayna Soomaaliland waxa u malayn lacag gooni ah haysta
iyo bankiga markasi gooniya laakiin koonfurta lacagta ka jirta 95 waa fake waqtiyadii Cabdiqaasim iyo inta ka dambeysay ayaa la soo saaray hatta waa aqoonsanaysa waqti waxa jirtay la diidi jiray tan fake waa iga celi tantii asalkii waaye TCAD bar uu ka tagay waaye laakiin hadda waxaas ma jiraan lacagihii dhamaan waa la qaadanaa sababta maxay tahay bankiga markasi soo saara mala lacag cusub la soo saara mala waxaa dambeeyay lacagihii dawladii hore ka tagtay marka aad ay u yaraadeen lacagihii kuwa baabay marka 95 waxay noqdeen lacag fake ah waxaan ganacsatay iyo ayaa iska soo saartay iska daawacda saas oo kale dhaqaalaha Soomaaliya 95 dollarized waay waxa lagu tacaamulaa dollar bunuugda hadda Muqdisho hadda tagto qof lacag Soomaaliya waxa iska aqbalay ma leh dollar ina ku dhiibato wax walba dollarized 95 dhaqaalaha Soomaaliya intaas dhan waa macluumaadkii iyo reportskii IMF ta iyo missionkii soo direen marka meesha waxaa ka jirta lacagaha dibadda laga soo diro badankooda nidaam المالي العالمي waxaa ka jira muassasaat المالية الدولية waxa la jira muassasaat dawli IMF ta waxay ishraaftaa bunuugda dawliga system la ilaaliya jirta lacagaha Soomaaliya dibadda looga soo diro Soomaaliya loo soo diro badankooda systemkaas ma soo maraan marka gaaladana iyo wadamada galbeedkana waxay ka cabsanayaan fangareenta argagixisada iyo waxyaabaha ay dhahaan ka cabsanayaan marka arintan maxay sababtay mushkilo ay waxay ku sabtay xawaaladaha qaar ay ku sababtay marka tanna waxay kala sabab u tahay bankiga markaziga central bankiga inuu awood u yeelan waayo inuu siyaasad naqdiya u sameeyo laana lacagtii gacantiisa kuma jirto bankiga markazi siyaasad naqdiya markuu sameeyay siyaasad naqdiya ma garanayna siyaasad naqdiya waxa waaye siyaasad oo ku saabsan lacagaha waxa dhacda wadanka waxa ka dhacda sicir barar marna inkimaasha ka dhaca marka qaabkee u maamulaysa waxa maamulay bankiga markazi central bank markuu sicir barar uu dhaco wuxuu sameeynayaa siyaasad naqdiya ayuu isticmaalaya siyaasad naqdiya adawaad la isticmaalaa jirta سعر الخصم iyo waxyaabo iyo sicir الفائدة iyo marka intaas oo Soomaaliya kama jirto asal ahaanba bankiga markiisa gacantiisa kuma jirto lacag marka ma awoodo inuu siyaasad naqdiya uu fuliyo marka qitaaca maaliga wali ku guda jirnaa waxa la isku dayay in la asaaso boorsa wax la boorsa mama yaa maqlay boorsa ama سوق الأوراق المالية أيوة سوق الأوراق المالية وحاوي أنا هذا وحان قرنا سوق السلع والخدمات يا أيوة سيلة العقد كده مركا إن ستوك إكستنج وحلا أما سوق الأوراق المالية والسوق أنا وحان قرنا سوق السلع والخدمات سوق أتجلس وحسوق كذا نيسا على سوق كذا نيسا وكنا سوق كذا نيسا taas waxa la mobile soo gadan silaa way silaa la taaban karo waxa jira suuq gooni ah lagu isticmaalo kaliya waxa lagu kala gataa waxa la lahaa usul maaliya waxa la lahaa suuq awraaq maaliya la usul maaliya waxyaabo waxa waay sanadaad iyo waxa la lahaa shares iyo waxyaabo la asum iyo marka suuq awraaq maaliya in la aasaaso la isku dayay waxa heshiis la galay suuq awraaq maaliya Nairobi ka jiro hada Muqdisho loo soo la keenay Muqdisho iyo Kismaayo hada wax laga furay laakiin ilaa hada shirkadaha ilaa 13 shirkad ugu waaweyn marka suuq awraaq maaliya waxa ka shaqeynaya waxa kamid ah shirkadaha wadankaas ugu waaweyn shirkadaha kuwana private way shakhsi iska leh ama lawaas leh ama shan qof asla leh kuwana waxa waaye corporation waxa waaye musaahama alcaam dadka dhan isla leh adi waa gadan kartaa waana iska gadi kartaa marka meesha ka gadanaysa meesha iska gadaysa waa suuq awraaq maaliya marka taasna waxay keenaysaa in shirkadihii waaweynaa anshitadooda activity-da markay sameynayaan finance ay ka helaan masnac weyn furatay lacag uma hayso ku fangarayso shirkadaada waxa ka helaysa waxa iska diiwaan gelinaysa suuqa awraaq maaliya meeshaas fangareen ka helaysa wax soo saarkaada kor u qaadaysa rabxiga ay hesho dadkii shareska gatay ayaa siinaysa marka boorsana way jirtaa asaasitaankeeda dhankaas waxa uu gudbayna qaybta maaliyadda waxaa ka jira Soomaaliya qitaac alfandaqa ama maaragta qaybta fanaadiqda iyo siyaaxada iyo aad ay hada kobac fiican u sameynaysa xeebta Soomaaliya aad u qurux badan dad badan booqasho u imaanay qasatan Soomaaliya waxa kale oo booqasho u imaanay dad dibadda ajaanib ah
حتى بوقشوا معنا هذا وقتها Soomaaliya فنادق فربضن أيال أساس وكوريسين هم لين حفلها روسكا kuwa siyaasiyiinta mar walba halkay wax ku qabsadaan fanaadiqda qof walba wax doonaya hotel wax ku qabsada marka aad u hormaray waxa kale oo aad u hormaray dhisitaanka caqaaraadka Soomaaliya Muqdisho waxa la hada newspapers ama media galbeedka iyo marka Soomaaliya ka sheekeynaya wuxuu ku leeyahay waqti ka hor 4 sano ka hor marka Muqdisho tagtid dhigaha waxa qabanayay xabada dhawaaqeeda laakiin hadda waxa isku bedelay arintaas dhawaaqa dhisitaanka marka Muqdisho aad tagtid waxa maqlayso sar la dhisaayo horeyna 4 sano ka hor waxa maqli jirtay dhawaaq xabad iyo bamboon marka dhismihii aad wadanka u dhismaayay qaasatan Muqdisho fanaadiqdii iyo saas ay noqdaan dhanka daaqada iyo mawaarid tabiiciya energy-ga mawaarid tabiiciya badana Soomaaliya way soo degsataa maaragtay energy-geeda petrol iyo waxyaabo ma soo saarto laakiin waxa lagu tilmaamaa petrolka Soomaaliya haysato mid aad u weyn wuxuu gaarayaa 110 trillion barmiil ayuu gaaray oo nafta ah ay haysato waxa la lahaa ihtiyaatiyad wax la lahaa jira marka dhanka daaqada laga hadlayo ihtiyaatiyaadka marka waxay u qaybsadaan kuwa muakkad ah ama ihtiyaatiyad caadi iska ah ihtiyaatiyad waxa way reserveska wadankan meeqa ku jirta hoostiisa meeqa ku jirta oo gas ama petrol ah marka la qiyaasayo marka shirkada ayaa qiyaasay shirkadaha taga seismic waxa aanay sameeyaan markay sameeyaan ka bacdi qiyaastii waxa ka soo baxay marka qiyaastii waxa la gaarsiiyay Wall Street Journal la dhaho New York ku yaala journalada ugu waaweyn adduunka dhaqaalaha ka mid ah qiyaasta wuxuu gaarsiiyay 110 trillion nafta barmiil ah lacagaha ka soo galaysa maxay noqonayaan trillioonaad oo dollar dhanka gaaska dabiiciga 100 trillion litir mukacab ayaa ku jirta gaaska dabiiciga badana wuxuu ku jira xeebaha Soomaaliya dhulka hadda isku haystaan Soomaaliya Kenya sababtiisa ma dhul caadi ma waxa la isku haystaa kheyraadka meesha ku jira kheyraad aad u fara badan ayaa meesha ku jira ceelal horay gumaysigu u xadiday ayaa meesha ku jira L5 L4 intaasna way ku jiraan Kenya marka waxay doonaysaa kheyraadkaas inay kala baxdo dhaqaalaheeda ay ku kobciso waxay la heshiisay shirkado dibadda ah marka Soomaalidana waxay rabtaa inay kheyraadkaas ka faa'iideysato marka dooda oo maaragta maxkamad jinaaye duwaliya la geeyay taas ay ku salaysanayd marka badda Soomaaliya waa bad aad u weyn badda ugu dheer waa xeebta ugu dheer Afrika kheyraadka ku jirana kheyraad aad u fara badan gaaskeeda aan soo sheegayni waxa ku jira asmaak ama malay aan caalamka laga helin ilaa laga helo Soomaaliya caalamka malaayada caalamka ma aragtay hijraaday sameeyaan marka meel qaas ay u soo hijroodaan ayaa jirta way soo hijroonayaan waxay imaanayaan dhulka marka waxa ku jira kheyraad aad u fara badan waxaana u soo hijroota malaayada ugu ma aragtay naadirsan caalamka una qaalisan waqti muayyan ay imaanayaan ay jirta intaas dhan waxa laga heli karaa qaybta samaga kaliya marka la dhaho potential fiican ayaa ku jira Soomaaliya oo 2020ka waxay gaaraysaa hadii la soo saaro 800,000 oo tan oo samaga ay soo saari kartaa marka ilaa hadda laga ma faa'iideysan warshado qaar ah way jiraan laas qoray iyo warshado ka jira laakiin ilaa hadda laga ma faa'iideysan mushkiladan waxa jirta caalamka ma aqoonsanaba xitaa warshada ku sameeyay Soomaaliya soo saarta malay qofka gadanay male waxa lagu leeyahay quality-gi ma waafaqsana standard-kii ma waafaqsana marka tarxiis duwaliya ma haysato dadka qaar waxay sameeyaan Soomaaliya ku soo saarayaan wadamo qaar ay u dhoofinayaan Indonesia Malaysia markaas ayaa suuqa caalamiga la soo gelinaya leena suuqa caalamiga toos uma gelin kartid waxa ka saaran waa ka mamnuucan tahay marka intaas waxa waay mawaarid tabiiciya iyo taaqada waay arintan hadda aan ka hadlayno qaab oo juz'i ahaan aan u hadlayno wax badan aan ka fahanay Soomaaliya qaybaha kala duwan qataacadka kala duwan dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu si galayna si fudud oo maaragtaa sariica qaybta ugu muhiimsan oo iqtisaadul kulliga ama macro economic Soomaaliya
أول وحان كهر مرينا جي دي بي جا وحان عندنا وحان هذا عن سو شيء الناتج المحلي الإجمالي عندنا هنا الناتج المحلي الإجمالي وحاواي إن محل كسر شيء الناتج المحلي الإجمالي صارك ودن كذا صار شكرا يا وضرت جود وحصو صار كودن كاس فترة معينة وصو صار سنة عمل وصو صار مركا سنة كان محوس صار مركا الناتج المحلي الإجمالي وحاجرة قاعدة لويلة أما قاب وكبس جريسيه محاواي محوك كوين يعني الناتج المحلي ودنك وحصو صار كيسا كو حواي استهلاكيسا لغو دري استثمارك لغو دري إنفاق الحكومي إيوه waxaa lagu daraaya export laga jaray importiga Soomaa marka istihlaaga dadka maxay istihlaagaan maxay cunaan dadka khaaska istihlaaga khaaska shacabka caadiga muxuu cunaa muxuu gataa adi baqaalaad tagta waxa soo gadata suuqa tagta intaas waxa ku daraysa maalgashiga wadanka meeqaal capital formation la wadankan maalgashigiisa meeqa waay lacagaha la maalgashtay dib loo maalgashay shirkadaha wax soo saaraya maalgashigooda maalgashiga markaa ku darto dawladda ayadana meesha ka jirta ama xukuumadda iska dheh xukuumadda meesha ka jirta ayagana infaaqeeda meequu yahay xukuumadda ayadana wax badan ay bixisaa Soomaa dadka u shaqeeya kumanaan kun ayaa u shaqeysa kuwa wasiiraha jira kuwa madaxweynaha xafiiskiisa intaas ka shaqeysa wasiirada boqolaalaha ku xiran baarlamaanka jira wasaaradihii jira ciidanka jira marka sector aad u weyn waxa waay infaaqa aad u maaragtay u weyn yahay marka infaaqa dawladda xukuumadana wuxuu noqonayaa saddexdaas markaas ku darto waxa ku sii daraysa waxyaabaha dhoofiso waxyaabaha soo saartay qaarna gudaha ku isticmaalaysa qaarna waa dhoofinaysa Soomaa waxyaabaha dhoofiso waxa ka jaraysa waxyaabaha soo degsato marka meeshaas waxa kaga soo baxay saafi saadiraad ama maaragta marka la kala jaro waxyaabaha dhoofisay waxyaabaha soo degsatay intaas markaas ku darto waxa waaye wax soo saarka wadankaas waay dhan marka uu eegno dakhliga wadankan waa la dhihi karaa dakhliga wadanka intaas uu gaaray wax soo saarkiisana inta isku mid leeyahay marka waxaan ka hadli doonaa Soomaaliya maaragta wax soo saarkeeda ama GDP horta GDP dhamaantiis ewer uu noqday markii xukuumadii ay burburtay laakiin hadda waxa jira dib u kabasho mid walba marka waan ka hadli doonaa بنك الدولي تقرير كلاود كنا شنو طبعا هو صار صار وحوك المامة سوماليا دقالة أما استهلاك هذا استهلاك قيمة كوبات أو وحصار كواي موقته بقول كي بقول جي دي بي كواي إحنا وحصار كذا لما تبي استهلاك معنا استهلاكات وفر بدن ماشي أنا كمجرى استثمار مركي دنبه استثمار كوحو مثلي boqolkiiba 8 hada isticmaalka 2015 boqolkiiba 8 ayuu gaaraya taasoo gaaraysa 434 milyan xisaabaadka hal mar hada dib ugu noqdo Soomaali GDP-geeda meeqan soo dhahnay ma xasuusatay ya aywa 6 bilyan ku dhawaad 6 bilyan dhahnay 6 بليون أيوة بليون أيوة 6 مليارات من الدولارات الأمريكية حسب تقرير IMF تصارتي 5.8 واي تقريبا لا 6 بليون 5.8 شان سديد بليون دولار واي GDP هنا مركا GDP وان استاجين دونا إن شاء الله هدان دب أسي وذينا هدان ماشي كو أكينينا وا يا أوكي إن شاء الله أوكي GDP waxaan dhahnay taqriiban 6 bilyan waay 5.8 waay dhanka maaragtay numuwiga kobaca dhaqaale Soomaaliya 2004 meequu gaarayay 3.7 3.8% macnaha kobac iska roon ayay kobacday waxaa ku darsamay 3.7 waxay soo saaraysay 2013 waxaa sii kororay 3.7 2015 hoos u dhacay taqdiiraadka IMF tan ka hadlayna
IMF-ta waxay tahayna waan ka hadli doonaa si gooni ah inaan uga hadalnaa fiicnayd laakiin waan ka hadli doonaa iyadana. IMF-ta waxay dhahday sanduuqa naqdi duwali ayaa lahaa taqdiiraadka 2015 2.7 waay taqdiiraadka 2016 hadda aan ku jirno iyo 17 waxaa waaye 4 waay boqolkiiba 4 uu kobcaya dhaqaalaha waa nisbo iska roon waay marka loo barbardhigo nisbada caalamiga ah marka loo barbardhigo way iska roon tahay. استثمار الأجنبي المباشر Soomaaliya استثمارka labaa loo kala qaada استثمار الأجنبي المباشر iyo غير المباشر. استثمار الأجنبي المباشر horta غير المباشر ma jiraba Soomaaliya sababtoo ah boorsadiiba ma jirto ama stock exchange ma shaqeynaa. Mubaasharka waa kan si toos ka maaragtay loo fangareeyo wuxuu gaarayaa 434 milyan marka استثمارka wuxuu matalayaa boqolkiiba 10 oo maaragtaa dhaqaalihii Soomaaliya ama wax soo saarka. infaaqa dawladda ma fahansanay tiyadaan ka soo sheekeynayna ciidanka 2014 meequu gaarayay miisaaniyadda dawladda waxay gaaraysay 151 milyan oo dollar 151 milyan oo dollar marka 2014 kan ka hadlaynaa leena ihsaa'iyaadka hadda jira badankood kuwii 2014 ilaa hadda lama process gareyn wadamada ihsaa'iyaadka horta way iska adag tahay Soomaaliya in la helo ihsaa'iyaad rasmi ah xaqiiqi ah intaan waxaa waaye kuwii IMF-ta ay samaysay waay guud ahaan wadamada soo koraya iyo Afriqiya ihsaa'iyaadkooda waa wax qalad ama wax oo accurate aan ahayn waay ma lama helaba marka waxaan ku bees gareynay 2014 ihsaa'iyaadkii ugu dambeeyay saadiraadkii waxay gaarayeen 819 milyan oo dollar waxa Soomaaliya dibadda ay u dhoofisay 819 waxa waaye wadanka 160aad ee caalamka tartiib ahaan marka loo fiiriyo waaridaadka waxay soo degsatay meeqa waaye 3 milyaar 482 milyan 3 milyaar marka meesha waxaa soo baxaya cajzi ama deficit cajzi gaarayo 2.63 billion dollar lama 2.3 milyaar oo dollar lacag aad u fara badan 2.3 milyaar oo dollar lacagtan deficit-ka ah ama cajziga ah waxay gaaraysaa xukuumadda lacagtay fangareynayso 10 jibaarkeeda waay xukuumadda Soomaaliya 151 ee miisaaniyaddeeda ay Soomaa 10 jibaarkeeda waay marka taqdiyada qaabkee loo daboolaa cajziga halka wax oo soo tukanayna okay halkan ku keenayna insha Allah markaan soo tukano horeyna waa idinku sheegay waxaan dhahay arqaamta in yar muumil waay laakiin muhiimadda waxa way ma taqaana natiijada aan ka gaari doono natiijada aan ka soo saari doono insha Allah dib u bilaabanayna barnaamijkeena waxaan ku guda jirnay الناتج المحلي الإجمالي ama GDP-ga Soomaaliya waxaan dhahnay guud ahaan waa 5.8 export saadiraadka waxay gaarayaan 819 waaridaadkana 3.4 cajzi bayna imaanaya oo gaarayo 2.6 bilyan oo dollar marka cajzigaas waxaa lagu daboolaya dadka Soomaalida waxyaabaha soo xawiisho oo dibadda ay ka soo xawiisho kuwaas oo gaarayo 1.3 2014 kan ka hadlaynaa waxay gaaraysay 1.3 bilyan dollars iyo musaacadaad kale oo khaariji ah dawladaha caalamka waxay bixiyaan musaacadaad dawladda Soomaaliya ay siiyaan musaacadaad kuwa siyaasi ah aadeen oo maaragta ay ku fangareynayaan miisaaniyadda xukuumadda ama kuwa maaragta tanmawi ah kobcinta wadanka madaaris iyo jaamacado iyo ama waxyaabo infrastructure-ka ay kaga qayb qaadanayaan ama kuwa iqaafi ah kuwaasna waxay gaarayaan 1.1 bilyan dollars marka cajziga waqtigaas dhacay wuxuu ahaa 450 milyan oo dollar marka waxaa iska jirta waxyaabo cawaamil oo daakhili ah iyo kuwa khaariji oo saameeya dhaqaalaha Soomaaliya kuwa khaarijiga waxaa ugu waaweyn caalamkii dhan dhaqaalihiisa ayaa hoos u dhac ku imaaday gaar ahaan shiinaaska oo maaragtay dhaqaalihiisa 30 sano la soo dhaafay aad u kobcay marmar wuxuu gaarayay 2 GDP boqolkiiba 10 in ka badan ayuu kobcay laakiin hadda hoos u dhacay
sanadkan hadda aan ku jirno 6.8 ayuu maraya. waxaa kaloo meesha ka baxay suuqii ay Afrika u suuq geyn jireen silacdoodii. Afrikada waxay soo saartaa keliya mawaad khaama, waxay dhahaan mawaad khaama, waxyaabo aan la samayn oo sinaca aan galin. marka waxaa dhacday suuqay u soo geyn jireen Shiineesku ahaa. Shiineeskina wax soo saarkiisa markuu hoos u dhacay, suuqii ayaa in yar ka xirmay. taasna mushkilo ayay ku noqotay. marka mashaakil kale oo dhaqaalaha Soomaaliya soo wajahaysa waxaa waaye siraacaadka hadda ka jira bariga dhexe sida Yemen iyo mushkiladaha ka jira qaxooti badan hadda imaaday Soomaaliya. waxaa kaloo hoos u dhacay musaacadaadkii duwaliga ah, kaalmadii Soomaaliya la siin jiray ayadana hoos u dhacday. ilaa hadda waxaan ku jirnaa macroeconomics aan ka hadlaynaa. waxaan ka soo hadalnay soo saarka Soomaaliya, waxaan ka hadlaynaa bataalada iyo tadakhumka Soomaaliya. Soomaaliya unemployment-yeeda shaqo la'aanteeda aad ay u weyn tahay, ilaa waxay gaarsiiyaan 70% dadka qaar ay gaarsiiyaan. dhanka dhalinyarada waxaa la gaarsiiyay 75 dhalinyarada Soomaaliya ma shaqeyso, jaamacadii laga soo wada baxay, qof shaqeeya ma laha. saa daraadeed waxay sababtay inay hijroodaan oo Yurubta iyo meelahaas ay iska tagaan. dadka shaqeeya Soomaaliya waxay gaarayaan 3 milyan oo qof ay gaarayaan. leanna nisbada Soomaaliya shabaabka ka 30 ka yar waxay gaaraysaa 70%. guud ahaan shacabka Soomaaliya 70% daadooda waxay ka yar tahay 30 ay ka yar tahay. marka waa bulsho oo maaragtay dhalinyarada dhamaanteedba. marka suuq badan ayaa jira oo loogu adeegayo dhalinyarada, sida maaragtay jaamacado badan hadda la sameystay, dugsiyo. qof walba marka istismaarka meesha uu gashanayo fiican, leanna dhalinyaradii iyo dadkii oo yaraa inay wax bartaan ayay rabaan. taas waxaan kaga gudbaynaa bataalada. tadakhumkana waan ka soo hadalnay oo waxaan dhahnay marka aad samaynayso wax dhoofintaada iyo wax soo dejintaada. wax dhoofintaada markay yar tahay, wax soo dejintaada ay badan tahay, meesha waxaa ka dhacayo cajziga ka dhacay. cajzigana muxuu sababayaa tadakhum, soo maha, cumladii hoos u dhacaysa. marka tadakhum weyn iska jiray. IMF-tana islaax al-iqtisaadiga ay soo barboos gareeyay uu ku jira in tadakhumka hoos loo dhigo, cumladiina islaax lagu sameeyo. halkan waxaan ka gudbaynaa bataaladii tadakhumkii. waxaa u galayna miisaaniyad caama waxa la dowladda miisaaniyadeeda. dowladda waa iska mid hadda iska yar, laakiin miisaaniya iska badan ayaa ku baxaysa. 2014 miisaaniyadeeda waxay gaaraysay 151 miisaaniyadda dowladda 151 ayay gaaraysay waxyaabahay bixisay. laakiin revenueskeeda waxyaabaha ayada heshay miisaaniyadda labay u qaybsantaa. miisaaniyadda caama marka labay u qaybsantaa. dowladda waxyaabahay bixiso iyo waxyaabaha soo gala. waxyaabaha soo gala waxaa ugu badan taxka, soo maha, daraa'ibta iyo ayaa ugu badan, iyo mashruucaadkay samayso. Soomaaliya mashruucaad ma leh. marka daraa'ibta ugu badan iyo non tax iyo taxtiga ugu badan. waxyaabaha ay bixisana waxyaabaha aan ka soo sheegaynayna waay oo baarlamaankii lacaga la siiya, madaxweynihii, wasaaradii, dhanka ciidanka, khadamaadkay gudbiso wasaaradihii, intaas lacaga ku baxda. marka miisaaniyadda guud 151 ay gaaraysay. lacagta soo gashay revenue-geeda 145. 2014 ka hadlayna. cajzi oo waxaa jira marka 5.8 ah miisaaniyadda dowladda, cajzi 5.8 ah galay. marka waqtigaas waxay dalbatay Soomaaliya IMF-ta waxay ictiraaftay 2013 IMF-ta. marka waxaa laga dalbaday islaax inay ku sameyso miisaaniyadda, cajziga ay yarayso. marka 2015 iyo 2016 hadda aan ku jirno cajzi ma jiro. 2015 tusaale ahaan 199 ayuu wuxuu ahaa revenue-ga, expenditure-na wuxuu ahaa 199. marka miisaaniyadda isku dheelitirnayd. marka way isku dheelitiran tahay marka lagu leeyahay revenue-ga ay hesho waxaa la jira caawimaad oo dibadda ah. tusaale ahaan 2000 iyo Donald Foundiga 2014 wuxuu gaarayay 61 milyan. wadamada caalamka waxay ugu deeqaan miisaaniyadda dowladda 61 milyan. 2015 85 milyan ayay ugu deeqeen.
سنة كان بقولي تدو مليون marka hadayna maran soo sheegnay waxa xasuusino maleena laga soo bilaabo xurriyadii Soomaaliya ilaa hadda dawladdu waxay ku dhisan tahay caawimaad aywa miisaaniyad oo dhameystiran ma helin 2016 hadda aan ku jirno miisaaniyadda la ansixiyay waxay gaaraysaa 246 milyan marka way isku dheeli tiran tahay infaaqi iyo xasiiladii labadaba isku dheeli tiran yihiin revenue heshay iyo waxyaabaha ay bixisay marka waxaan doonayaa IMF in aan wax yar aan ka hadlo laakiin waan dib dhiganaynaa faqriga Soomaaliya aan ka hadalno لأنه waxaan ka hadlaynaa macroeconomics Soomaa macroeconomics badana wuxuu ka hadlayaa natiija maxalliga bataalada iyo tadakhumka iyo ma aragtaa wuxuu kala faqriga guud siyaasadda iqtisaadiga iyo tanmiya iqtisaadiga intaas oo ka hadlaya macroeconomics lagu sheegay dhamaantiis faqriga hadaan wax ka taabano UNDP taqriirka soo saartay 2012-13 waxay ku tilmaantay 82% Soomaalida inay qaab ahaan noocma faqri ay ku jiraan marka ka badbadin waa laakiin taqriiraadkeeda saas ay sheegaan 75 dhalinyaradana inay unemployment bataale ay ku jiraan marka faqri badan ayaa iska jira faqriga waxyaabo ay ku dhisayaan waxyaabo ma aragtaa lagu muransan yahay laakiin taqriirkooda saas ay ku sheegaan marka waxaan u sii galaynaa deynta Soomaaliya lagu leeyahay adi shakhsiyaad tahay waxa cunta Soomaa marmar waxa laga yaabaa biilka inuu ku yara waa soo deensanaysa dawladana saas amal leeyahay ayadana miisaaniyadda markay ku yaraato deyn ay soo qaadanaysaa marka deynta lagu lahaa Soomaaliya 90 markuu dhacay 2 milyan amal ay gaaraysay laakiin hadda waxay maraysaa 5.4 bilyan dollar 5.4 bilyan dollar oo waxay mathalaysaa 93% oo GDP-geeda soo saarkeeda guud iyo deynta lagu leeyahay 93 waxa waaye deyn lagu leeyahay laana deynta waxa waaye ma taqaana awal deena lagu siinaa waxa interest afusha aywa interest marka way kugu badanaysaa 2015 waxay ahayd 5.3 5.3 2015 maxay noqon 5.4 marka way sii badanaysaa marka saddex daqiiqan ku darsanaa oo ah deyntaas dadka kule marka deyntaas saddex jiha loo qaybin kara Paris Club Credits kuwa la dhaho kuwa deemiyaasha Paris naadi Paris Allah asi wuxuu ku leeyahay 2.3 bilyan waxa kaloo jira kuwa naadi Paris aan ku jirin asna wuxuu gaarayaa 1.5 waxa kaloo jira 1.5 oo iska leh jihooyin kale marka IMF-ta hadda marka waxaan ku sii noqonayaa waxaan u sii gudbaynaa siyaasadda iqtisaadiga siyaasadda iqtisaadiga waxa waaye siyaasadda dawladda ay dejiso marka dhowr qayb ay noqonaysaa mid naqdi ah mid maali ah ay noqonaysaa kuwa kale oo maaragtay tijaarada khaarijiya marka siyaasadkooda waxaan ka soo qaadaynaa midda naqdiga ah haday wax yar aan ka soo sheegnay midda naqdiga maxaan dhahnay siyaasadda naqdiga waa midda hadafkeedu yahay tadakhumka ama inkimaashka tadakhumka la yareeyo ama inkimaashka kor loo qaado hadafkeedu saas waay marka IMF-ta waxay aqoonsatay dawladda Soomaaliya 2013 heshiisa marka dhaxgalay oo ah in la musaacadeynayo marka waxay dhahday anaga waa idin musaacadeynaynaa waxa sameeyay islaax al-iqtisaadi islaax al-iqtisaadi marka IMF-ta waxay magacaaday guddi oo loo soo diray Soomaaliya oo soo diyaariyo maaragtaa statistics-ka iyo waxyaabo ku saabsan ihsaa'iyaadka dhaqaalaha way soo diyaariyeen waxyaabaha hadda soo gudbinayna badankooda way soo gudbiyeen marka waxay kaloo fiiriyeen miisaaniyadda Soomaaliya cajzi ma la yareeyay marka waxay kaloo kulmeen 2015 si heshiiskii kor loogu sii qaado marka heshiiskii waxa loo sii gudbiyay 2016 bishii May ahayd sanadkan wasiirka maaliyadda iyo heshiiska waxa kala saxiixday IMF-ta oo New York ay ku saxiixeen waxa la marka hal sano ayaan maaragtay idin ku kordhinaynaa oo ah waxa dacm oo fanni ah ayaa idin siinayna tababaro iyo waxyaabo ku saabsan islaax iqtisaadina waa inaad sameeysiin
oo lacagta inaad maaragta lacag cusub aad soo saartiin tan kale arrintii hadda ayaan ka hadlaynay oo taxwiilaadka khaarijiga waxaan dhahnay waxay ku imaanayaan cabra turuq khayr sharciya sooma ayadana in la saxo iyo maaragta in miisaaniyadii balanced ay ahaato zero balanced mar walba isku dheelitirnaan revenue and expenditure marka arrintaas waxay dhacday bisha May dowladana arrintaas hadda ay sii sameynayso marka IMF-ta maxay tahay IMF-ta waa hay'ad sanduuq duwali ah waxaa la aasaasay 1944 Mareykanka lagu aasaasay Bretton Woods ayo ittifaaqiyada ahayd marka IMF-ta waxay matashaa bangiga markaziga dunida bangiga markaziga waxaan ka soo sheegnay Soomaa hadda dhow waxaan dhahnay mid uu sameeyo waay lacagta uu soo saaraa tarakhiista wuxuu siiyaa maaragta muasasat almaaliya wuxuuna sameeyaa ishraaf wuxuu ku sameeyaa muasasat almaaliya ayo baaqal bunuug ishraafna wuxuu ku sameeyaa wuxuu kaloo sameeyaa siyaasa النقدية قفك مسؤول كا مركا أيضا وحي مثليسا بنك المركزي للبنوك المركزية العالمية مركا الدولة والبنك المركزي إليها مدة هو إنه هاي مركا معمولة عدي بنك الدولة أي ميزانية عجز كل عضو أيضا فنكرينيس مركا IMF تساس وعي منظمة قابكاس أصلا يسن وعي مركا يكون فنكرينيس الشروط يكون حريسان شروط هذا الصومالي يكون حرت عمل هداينا وحان كسو شيكني مساعدات إن ماركت دعم سلع الأساسية إن لجوجيو ميزانية إن لصحة هيكلة الاقتصاد لسمايو وحيوية عن صوش الشيكنا يعني مركا السياسة الاقتصادية أنت سكجود بينا السياسة المالية أيضا وحيكو سابسنتها يعني دهني ريفينيو ينكر له قاعدة مركا وحيوية IMF تي حكومة يكون شيئين كمتها وحنا صوش إن لوضع السنة وجودن بيسي إن ماركت الميزانية دي سكود هي للترنيد وانكسو هذا النسمة التنمية الاقتصادية إن كان العربي لكن وقتي أنا مسامحة أنت أيام كسو جبينا يا جود أمس فرصة الله هلا مركب وحن كهذلني نبدأ جود وكسب سن قارة سوماليا مراحش يسومري وحن كهذلني سوماليا قاب أو ماكرو أهان يا مايكرو أهان أيا أصو هذلني مركب وحن سوشي إن سوماليا إن كسر توضدي ريكفري مستقبل كان الله رجينا يو تقالة في عن إنه صوق على صوبته وحاول خيرات في عن يسته خيرات كسدي وقف يسته سدي لدوني حين قنا يسودن أو هرمرسن إن احتياطيات عن سوشيال كل هذه كفاية يسته كقفلان هذه كل زراعة كفاية يسته كقفلان تاعي هل سكتر كل ستوس هذه وفاية يسته عادي ما ركتا ودن برواقة أيون قناع أنت سوق جوينا في سؤالها نقاشة
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، maanta hadduu ilaa yidhaah waxaan ka hadli doonaa mowduuc aada muhiim u ah oo ah Soomaaliya, anagoo ka eegayna dhanka iqtisaadka, aragti oo ma aragtaa iqtisaadi anagoo ku eegayna Soomaaliya.